bulshada sharafta mudan ee ku xidhan Channelka Maanmaal soo dhawaada maanta xalqadeenan waxa aynu ku falanqayn doonaa Thomas Ezedo Noel Sankara yuu ahaa muxuu qabtay maxaase loo khaarijiyey balse intaynaan gudagelin fadlan riix subscribe si aad noo dhiirigeliso Thomas Sankara waxa uu 22 December 1949 ku dhashay Ogadago oo ah caasimadda Burkina Faso abihii wuxuu ka tirsanaa ciidankii Faransiiska ee la dagaalamayay Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka gugii 19aad markuu baarka ka gooyay Thomas Sankara waxa uu ku biiray ciidanka qalabka sida waxa tababar loogu diray dalka Madagascar halkaas oo uu ku soo arkay kacdoon dadweyne intii u dhaxaysay 17 iyo 22 waxa uu halkaa ku bartay hanti wadaaga waxa uu gudagalay inuu akhriyo kutubtii Marcos iyo Lenon taas oo uu si weyn ula dhacay waxa uu 22 dabayaaqadiisii ku soo laabtay dalkiisii hooyo oo markaas magaciisu ahaa Fooltada Sare 1976 ayuu noqday hogaamiyaha xarunta tababarka ciidamada gaarka ah halkaas oo ay isku barteen saaxiibkiisa ee halganka badan wada gali doonaan ee Kambauri waxa ay si wada jir ah u unkeen koox qarsoodi ah oo ka kooban janano sarsare oo hanti wadaaga oo kala ahaa Zongo, Janlijani, Bokari, Kobauri iyo Sankara jananadaasi waxay 81 ku guuleysteen afgambi ay ku bartilmaameedsadeen xukuumaddii waqtiga talinaysay xukuumaddii cusbeed ee la yagaleelay Sankara waxa loo doortay inuu noqdo wasiirka warbaahinta intii uu xilka hayay wuu iska diiday dhammaan deeqihii uga imanayay xukuumadda uu ka tirsanaa shaqadiisana waxa uu ku iman jiray mootadiisa muddo markii uu xilka hayay ayuu dareemay in xukuumaddani tahay mid musuq ragaadiyay kadib mucaaradnimo hor leh ayuu ku bilaabay taas oo cadho gelisay madaxdii dowladda xilka wasiirnimo ayaa halkaa lagaga xayuubiyay sheel gurina waa lagu xukumay 1983 ayuu mar kale Kambauri afgambiyay xukuumaddii talada markaas haysay markii afgambiga uu ku guuleystayna waxa uu jeelkii ka soo saaray Thomas Sankara waxaana loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalka hogaaminaya Sankara waxa uu ahaa aftahan ilaahay hadalkarnimada hibo u siiyay gole kasta oo uu soo istaago waxa uu si badheer ah weerar ba'an ugu qaadi jiray imbaraaliyadda iyo dowladaha gumaysiga waxa uu ku celcelin jiray in dalalka reer galbeedku ay si toos ah oo aan qarsooneyn u dhacaan khayraadka qaaradda Afrika waxa uu daaha ka feedi jiray in caawimada ay keenaan reer galbeedku ay tahay mid ay ugu tala galeen inay kaga ragaadiyaan dadka Afrikaanka ah inay wax qabsadaan markii uu xilka isku hubsaday waxa uu gudagalay inuu dhiso kaabaha dhaqaale ee dalkiisa waxa uu la dhacsanaa oo fikradihiisa ka soo dheegan jiray kacdoon wadayaashii dunida waaga caanka ka ahaa sidii Che Guevara, Fidel Castro iyo Jerry Rawlings siyaasaddiisuna waxa ay ku wajahnayd ka hortagga musuqmaasuqa iyo dabarjarista abaaraha iyo gaajada ragaadiyay shacabkiisa markii uu xilka la wareegay Judhiba waxa uu hantida dawladda ku soo celiyay dhulkii ay madaxda iyo oday dhaqameedyadu kootada ku haysteen waxaana uu u qaybiyay beeralayda saboolka ah waxa uu ka dulqaaday beeralayda cashuurtii araxda ka jabin jirtay taas oo keentay inay 4 sanadood gudahood ay laabmaan galeyda iyo cudbiga soo go'ayay oo halkii markii hore hektar kasta ay ka soo go'i jireen 1700 oo kilogram ay gaadhay in 4 sano gudahood hektarkii ay ka soo go'aan 3900 oo kilogram taasi waxa ay gaarsiisay dalka Burkina Faso inuu dhaafo isku filnaanshiyo oo uu gaaro in dalaga soo go'aya uu ka bato baahidiisa sidoo kale Sankara waxa uu joojiyay badeecadihii shacabku kala soo degi jireen dibadda waxaana uu dhiirigeliyay wax soo saarka dalka taas oo keentay muddo yar gudahood in shacabka Burkina Faso ay gashadaan maryo 100% dun ah oo lagu sameeyay laguna taray dalkooda hooyo 1984 ayuu ka bedelay dalkiisa magacii gumaystuhu u bixiyay oo ahaa Fooltada Sare waxaana uu u bixiyay Burkina Faso oo macnaheedu yahay dhulka ragga sharafta leh waxa uu sameeyay calan cusub iyo hees qaran oo qiimo badan daryeelka caafimaadku waxa uu ka mid ahaa ahdaafta koowaad ee Sankara sida awgeed waxa uu bilaabay campaign lagu talaalayo bulshaweynta dalkaasi hal isbuuc gudihii ayaa lagu talaalay 2 milyan iyo badh shacabka dalkaasi ah adeega caafimaadka waxa uu shacabka uga dhigay bilaash taas oo horseeday inay hoos u dhacdo dhimashada dalku oo markii hore kunkii qofba 280 ay daryeel la'aan u dhiman jireen waxaana uu 4 sano gudahood ka dhigay in kunkii qofba 180 ay ka dhintaan taas oo dalada caafimaadka adduunku ay ugu hambaliyay Sankara sidoo kale waxa uu furay mashaariic waaweyn oo dib u dejin ah oo kaga takhalusayo xaafadaha saboolka ah ee caafimaad darradu ka soo burqanayso waxaana uu dhisay guryo shacabku si bilaash ah ay ku degaan si uu taa u gaarana waxa uu yagleelay warshado soo saara sibirka jaajuurka looxa iyo masaabiirta
waxaana halkaas shaqo ka helay kumanaan shacabkiisa ah. Waxa uu beeray 10 milyan oo geed oo kaga hortagayo dhulkiisa saxaraha isku bedelayay. Sidoo kale waxa uu dhisay 7,000 oo tuulo oo uu mid kasta u dhisay cisbitaal iyo iskuul bilaash ah. Waxaana dhinac socday 7,000 oo kiiloomitir waddo tareen ah oo isku xidhaysay tuulooyinkaas. Waxa muddo yar kor u kacay heerka aqooneed ee bulsho oo markii hore ahayd 50% halka ay ka gaadhay maamulkii Sankara 90%. Waxqabadka Sankara waxa ay ka markhaati kaceen in dalalka Afrikaanka ahi ay horumari karaan iyagoo aan ku tiirsanayn caawimada dalalka shisheeye. waxa uu xil weyn iska saaray Sankara xuquuqda haweenka isagoo oo doodiisa udub dhaxaad uga dhigay marka aanu xuquuqda dumarka u doodayno ama aanu u halgamayno nagama aha laablakac ama wanaag aanu dumarka u galayno ee waa xaq ay leeyihiin oo loo celinayo. waxa uu xukuumaddiisa ka siiyey kuraasi badan. sidoo kale waxa uu joojiyey gudniinka haweenka iyo guurka qasabka ah. waxa uu jideeyey xeer ciqaabaya ragga aan haweenkooda hawlaha guriga ku caawinin. waxa uu yagleelay maalin la xuso marwooyinka dalkaasi maalinkaas oo ay raggu qabanayaan dhammaan hawlaha haweenku ay guriga ka qabtaan. sidoo kale waxa uu shacabkiisa ku booriyey inay ilaashadaan caafimaadka iskana ridaan miisaanka fuulaya taasoo in badan la arkay isaga oo wadooyinka caasimadda arooryada hore orod ku maraya. waxa uu hoos u dhigay mushaharka wasiirada iyo madaxda waxaana uu iibiyey gawaadhidii qaaliga ahayd oo uu ku bedelay gawaadhi lagu sameeyey dalkiisa hooyo. waxa uu diiday in xafiiskiisa lagu xidho AC isaga oo sheegay in aanu xaq u lahayn inuu ku raaxaysto hawadaas iyo leydhaas macaan inta shacabkiisa cadceedu hayso. waxa uu mushahar u qaadan jiray $450 taas oo ka dhigtay madaxweynihii ugu sabarsanaa adduunka ee waqtigaas. waxa uu diiday in sawirkiisa lagu xidho xafiisyada dadweynaha isaga oo sabab uga dhigay in qof walba bartiisa madax ka yahay. waxa uu joojiyey cashuurtii dadweynaha laga qaadi jiray gebi ahaanba waxaana cashuurta lagu keli yeelay madaxda dawladda oo qura. waxqabadka indha sarcaadka ah ee Thomas Sankara waxa uu noqday mucjiso adduunka u soo baxday. waxay Burkina Faso noqotay tusaale farta lagu fiiqo balse horumarkaas iyo wanaaggaasi waxa uu cadhig geliyey dawladaha jaarka ah oo ka cabsaday in fikradiisaas kacdoon ay raadkoodu soo gaadhaan dalkooda. sidoo kale waxay cadhig gelisay Faransiiska oo u arkayay waxqabadka Sankara inuu khatar ku yahay dhaxalka ay gashadeen dalkaasi maadaama uu meel kasta Sankara la taagan yahay colaadda gumeysiga iyo shisheeyahaba. 1987 ayaa la dilay Sankara iyadoo ay dilkiisa u heshiiyeen sirdoonka Faransiiska iyo saaxiibkiisii qaaliga ahaa ee Kambauri. waxaa dilay 12 nin oo hubaysan goor uu ku sii socday shir oo madaxda dawladda la lahaa. meydkiisii inta ay qaateen oo jarjareen ayay ku aaseen xabaal aan la garanaynin. intii aan la dilin Sankara in badan ayaa looga digay in Kambauri uu xumaan u maleegayo laakiin dhag uma jalaq siin jirin waxaana uu ugu jawaabi jiray saaxiibadu khiyaano kuma kacaan. Thomas Sankara wuu sii odorsay dilkiisa oo markii la dilay Che Guevara oo 39 jir ahaa ayuu yidhi haddii lagu dilay Guevara 39 jir aniguna gugayga 39 dhaafi maayo. isbuuc kadib geeridii Guevara ayaa isagana la dilay. markii uu dhintay waxaa xilka la wareegay Kambauri markaas ayuu ka takhalusay wax kasta oo lagu xasuusan karayay Sankara. waxa uu soo celiyay cashuurihii oo uu labanlaabay madaxdii musuqmaasuqa ku caanbaxdayna xilal cusub ayuu ku tahay. dhulkii beeraha ahaana dadkii hore looga xayuubiyey ayuu gacanta ka geliyey taas oo dalkii dib ugu celisay saboolnimadii iyo gaajadii uu ka soo saaray Sankara. xilka waxa uu ku fadhiyey Kambauri 1987 ilaa 2014. Thomas Sankara waa madaxweynaha Afrikaanka ee loogu xusid iyo xasuusta badan yahay. geeridiisa kadib waxa uu astaan u noqday halganka iyo wadaninimada. waxa uu astaan u noqday dhalinyarada Afrikaanka ah ee isbedel doonka ah. waxa uu ahaa kacdoon wada geesi ah, hogaamiye buruud leh iyo madaxweyne ka talinayay samata bixinta qaaradda Afrika oo dhan. waxa uu rajo u ahaa dadka saboolka ah. waxa uu ku guuleystay dalkiisii oo ahaa dal sabool ah oo ku tiirsan caawimada awoodaha shisheeye inuu ka dhigo dal isku filan dhaqaale ahaan oo horumarsan bulsho ahaan. waxaa lagu tiriyaa Sankara inuu ahaa hogaamiyihii ugu wanaagsanaa ee soo mara qaaradda Afrika gumeystihii kadib.